marka saaxiibayaal anigu waxaan ahaa dadka jecel inay noqdaan kuwa bulshada ka hor muuqda oo la dhageysto oo waxaan jeclaa inaan noqdo qof markasta uu isagu hadlayo noqda wax kaga duwan yahay dadka kale oo wax ku ool hadalkiisu yahay runtii saas jeclaan jiray inaan noqdo markan dhalinyarada ahaa dhibaatooyinkii iyo rafaadyadii aan soo maray ayaan rabaa ka sheekeeyo ee magaalada Nairobi aan hadda igala socotaan asxaab fara badan iga soo maray waxa iga soo maray qof i garanaya oo i weji garanaya oo i qabiil garanaya oo haddana i aaminaynin oo aan igu aaminaynin shaqadiisa qof kasta oo dunida heer gaadhana waxaad ogaataan aad buu daala dhacaa wax kasta oo aad rabtana ma aha inaad ku gaadho orod iyo degdeg live-kan caawada asxaabta faraha badan ee daawanaysa aad iyo aad baad ku mahadcelinaya inta soo dhawaanaysana waa soo dhaweynaya hadba nagu soo biiraysa aad iyo aad buu soo dhaweynaya barnaamijkiiga caawa waa dhiirigelin kaliya anigu waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed waxaa yaqaanaa ugu yaraan dad hadda haddaan isku celceliyo 12 milyan Soomaali oo dhan ma oran karo moogtahay Soomaaliyin yar bay taqaana marka inta yar ay taqaano Soomaali lama tiriyo waa 30 milyan ee cidna ma tiriso inta ay taqaana waxaan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad siday jecel yihiin mana rajeynayo inay 100% i wada jecel yihiin waxaan ogahay inay qaarkood i daawadaan i dhageystaan markasta iyagoo aan dan iyo muraadiga lahayn nolosha dunida marka aad fahanto inaynan cidna dunida dan ka lahayn adiga naftaada cidna dan ka lahayn waa marka aad dunidana wax ku soo kordhinayso bulshada kale ee ka yaryar ee ku daawanaysana aad u tahay qof ay dhageysan karaan oo ay wax ka faa'iideyaan anigu magaalada Nairobi waxay soo martay aniga oo 3 jeer wax cunin 3 times anoo wax cunin magaalada Nairobi ay soo martay saaxiibayaal sababta igu soo martay garab iyo gacal iyo wanaag midna kuma lahayn inaan shaqaysta ayaga goonayd laakiin dadka waliba lagaga fiican yahay baan ahay baryootanka iyo wax weydiinta maanta nolosha halka ay taagan tahay haddii maalinta aan isdhiibi lahaa oo aan bartaan taagnaa xanuunkii ay ka noqon lahaa maana taagnaadeen aniga oo wax badan ku guuleysanin oo og ahay inaan marar badan dhacay oo aan marar badan intaan soo diyaariyay 100% and then still failed ma ana halkan maanta taagnaadeen asxaabtani daawanaysa miyay daawateen kuwa yaqaanay meel hayga yaqaanay intan way yar tahay ma aysan sidan ku dhacdeen sababta ay ku dhacday dad waxa jira nolosha aad aaminto dad waxa jira nolosha aad garab ka dhigato dad waxa jira nolosha aad tiraahdo they are my brothers they are my cousins they are my a lot of my baa dhacda adduunyada all those people imagine qaar waxa jira baadida kula dayda daal ka badan oo aan doonaynin inaad hesho daa'in abidkood taayla socod aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa asxaabta ila socota live-keena dhiirigelin ku saabsan yahay waxaan sheeg ku dhex jiraa waliba qisadii noloshayda Nairobi inay nolol adag igu soo martay in dad badan oo u yaqaan ay xumeeyeen oo ugu talagaleen inay xumeeyaan oo aanan ceeb u arkin ee aanu arkay inay tahay wax adduunyada ka dhaca asxaabta reer Soomaaliland aad baan ku salaamayaa saaxiib asxaabta reer Soomaaliland saadi wataan baan idin wataa anigana Nairobi waxay soo martay saaxiibayaal inaan anigoo shaqo taga oo shaqo raadinaya la igu yiri shaqo kuma hayno ee ma haysataa damiin iyo shaqo waxa la yiraahdo CV oo aanan aqoonin baan ugu marar badan ma ka sheekay waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad waxaad rabto adigu aad cidna ayna ka hor istaagi karin ay ku xiran tahay niyadda qalbigaaga hadduu ka soo go'o waxan sidoo doono ha ahaado haddaad rabto military inaad ku biirayso noqo ciidan inaad qoran rabto noqo haddaad rabto inaad dowladda u shaqayso xafiisyada noqo haddaad rabto inaad noqoto qof ganacsada ah oo nolosha isagu wuxuu leeyahay la yimaada everything starts from you wax kasta adduunyada adiga ayuu ka bilaabmaa marka Nairobi waxyaabihii soo maray waxa kamid ahayd aniga oo aad iyo aad u jawi iga xun yahay inaan dad aan aqaano ay meel aan uga baahnaa inay gacanta qabtaan iyo qaban waayeen waxay bartay noloshu inay dadku ceeb ku lahayn waxay sameeyaan go'aan kasto iyo gaadhaan iyaga xaq u leh laakiin waxa ceeb adiga inaad hoos foorarsato madaxaaga hoos u dhigto oo aad garbaha kor u qaadi kar weydo oo qofka tahay is aamin weydo oo aad nolosha hoos u dhacdo taas ceeba marka aan nolosha anigu ku guuleystay waxaan iska ilaaliyay wax saaxiib la yiraahdo dunida ha samaysan hadda kula talinaya intay daawanayso ama duuba ama ha duubanin don't have a friend ingiriiska iska fahma nolosha asxaab samayso dad samayso alla sheekeysatid wanaag iyo ixtiraam iyo kalgacal baro sida dadka loola dhaqmo
sida dadka maxay ahayday qofkii dani kaa soo gasho dantiisa loogu oofiyo iyadoo aysan jirin wax lugooyo iyo hoos dhac iyo la yasa iyo magac baa hebel leh iyo hebel baan magac lahayn iyo iyadoon jirin dunida asxaab samayso but hadda adiga ay daawanayaa hadda adiga ay daawanayaa hadda saaxiib wax la yidhaahdo halkaa iska dhig hadda mid aad idin kala saaro dadkaad wax wada cuntaan dadkaad isla qososhaan dadkaad is wacdaan kulli anigu malihi iska wada tuur waa noqo qof keligii iska nool waxaa tahay qof dad ku dhex jira u sheekeeya la sheekaysta ku dhex jira balse ha noqonin qof dunida wax kasta oo ay dadka ku agdhow samaynayaanba isagu inuu sameeya isna la quman tahay saaxiibnimadu hayaysan noqonin qof hadaf aan lahayn oo qof kasta oo saaxiib la ah waxa uu sameynaya isagana la quman tahay waa inaad noqotaa adigu qof leh qof samayn kara coalition dad shaqayn kara oo isagu inuu wax soo saar noqdo adigu wax soo saar baa tahay dhalinyaraad tahay oo ay daawanaysaa wax soo saar baa tahay adigaa wax soo saar ah dunidoo dhan baad ku raadinaysaa hadalkaa waxaan ka wadaa maadaama adigu tahay qofka wax soo saarka leh dadka adigu ku kalif dadka inay iyaguna wax kaa dhageystaan inay wax soo saaraan inay maaragtay bulshadu hadda halkaad ka taagan tahay ma aha inaad tiktok ka soo gasho oo aad ku raadiso magac caannimo iyo wanaag aad ku raadiso sharaftaadii iyo wanaagaagii oo hoos u dhigto ama aad isqaaqaawiso ama aad dhaqankaaga hoos u dhigto ama qof kala caydo waxaa ka wanaagsan adiga oo one day popular viral ku noqon karo inaad samayso wax bulshada oo dhan anfacaya oo idea ah just go positive negative inta hadda aad ka fikirayso oo aad negative ku mashquulsan tahay very small way dhinaca kale waxaa kaa xiga positive things oo dadka dhan ka farxin kara remember adduunyada gantaalka u duula cirka ee weliba qaarkood dhexda kusoo dhacaan qaarna guulaystaan sida naloo sheegay mariikha aadaan dad baa gacanta ku wada dad baa usoo jeeda 24/7 dad baa u fikiraya dad baa they are driving sidan gaariga u wadno oo kale marka asxaabtay daawanaysa ee qiimaha leh ee aanan weliba hadda qaarkood soo qabanin oo rabeen idinla sheekaysto idinkuna dhiirigeliyo wax kasta oo rabto inaad samayn karto wax kasta oo rabto ay gacantaada ku xidhan yihiin waqtigaygan gaaban dad baa waxay leeyihiin English nagula hadal please I'm telling you I am so sorry we have here 260 people and I know 100% 89 of them they just speak my language so I apologize waad mahadsantihiin saaxiib yaal sharaf iyo wanaag baad leedihiin asxaabta afkaana ku hadlayaan fahmayn way iskaga daawan karaan hadeer qiimiyo wanaagba aad leedihiin asxaabta weliba waxaa jirta dee aan wada dhalanay oo dhiig wadaagno Soomaaliya haddana aan afkii fahmaynin way jiraa ciladahaas oo kale waa kuwa u baahan laga daba tago oo weliba dowladaha iyo dadka Soomaaliyeed ay ka daba tagaan oo ay u sameeyaan iskuulo ama international ha ahaadaan ama local ha ahaadaan lagu barto luqadda hooyo oo lagu kobciyo laguna sii kor qaado calanka buluuga ee arkaysaan luqadiisu waxaa la qoray oo dhulka lagu xariiqay 1972 sida aan qiyaasayo afka hooyo marka ragga qori ragga xasuusta waxaa ka mid ah Abongaariye Allah naxariisto marka luqadeena hooyo idan hala barto qisadaan idin wadaya saaxiibayaal anigu waxaan ka imid aniga oo yar oo waxa weeye ciyaal tuula ah magaalada xagan Soomaali galbeed ku taala aniga oo yar oo 16 jir meelaha jiro waxaan rabay inaan u lugeeyo oo aan aado magaalada la yiraahdo Dhagaxbuur oo ay markaa tolkay iyo ehelkaygu degan yihiin waxaan rajeynayaa inaan muuqaalkan oo in badan joogay weliba soo duubi doono haddana inta imika daawanaysa 300 gaadhaysaan aad uga sheekeynayaan iyo ka badan magaalada markaan nimid ma aanan ku lahayn wax xiriir mana aqoon telefoon waxa la yiraahdo xataa telefoonka lagu hadlo ma aqoon dad badan waxay ku noqon doontaa surprise waxay arkeen anoo Ingiriis ka jabsanaya waxay arkeen anoo ku hadlaya luqado fara badan laakiin waxa laga yaabaa oo soo xil ka mid tahay laakiin waxa laga yaabaa background-kayga saxda inaan ahayn Xasan Cabdi Muuse Gantaal fanaan Soomaaliyeed oo bulshada loo dhaxeeya Gaarisa ilaa iyo Djibouti ilaa Jigjiga ilaa iyo meel kasta markaan ka soo baxay magaalada Gurdumi la yiraahdo oo ahayd magaalo uu waliba ku lahaa taageeraad fara badan oo waliba uu deganaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan taariikhda ninkii haya oo taariikhda Soomaalida haya Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa ay ahayd saldhigaas oo waliba ciidankiisu talada ku kala qaadan jireen iyaga oo hadba meesha ay u duulayaan meesha ku tashada Gurdumi waa meesha aan ku dhashay waxa wali ku sii yaala fariisimo ama kuraas isagu u lahaa sayidka iyo ciidamadiisii la shaqeyn jiray waliba kuwii laga sii garanayay meesha qaarkood ku geeriyooday waxa kamid ahaa nin la yiraahdo Cabbaas oo kale daraawiishtii buu ahaa buuhoodlii xagga
meeshaasaan ku dhashay meeshaasaanan ka lugeynayo oo aan u socday magaalada Dhagaxbuur markaan tegay magaalada Dhagaxbuur kumaan lahayn wax xidhiidha magaalada Dhagaxbuur kumaan lahayn family baan ku lahaa laakiin telefoon ma aqaan si loo raadiyo meel ay ka degayn magaalada ma aqaano waxaan soo lugeynayay 24 hours waxaan meel dhexda ka helay caawimaad gaadhiba ay soo caawiyay magaaladii soo dhex tuuray magaaladii way weyn tahay dhinac loo dhaqaaqayo yaanu garan maayo dadkiina waa in la istooydaayo hebel baa ree hebel iyo hebel baa ree hebel la isku soo raadiyaa Soomaalidana waxa caado ah waliba reer guraaga inay istooydaan oo isku weydiiyaan nin hebel war xagee ka timido reerkeeta xema waxa aad iyo aad wanaagsan weeyo cid walba waxa loo raadiyaa cidii ay maartay xigtiyoon yihiin xid iyo dad sudo iyo gacad meeshii markaa nimid ayaa maanan xagga u eegin hortayda meeshii lugteedu u furnayd ay u sii jeeday baan u dhaqaaqay bal adigu magaalo aad timid oo aanad qofna ka garanaynin oo aan telefoon xiriir lahayn waa 2009 toos from baadiyan ahay taariikhdeedu cidna kama qariyo waan ku faanaa hadda waxaan ku hadli karaa 3 luqadood baan si toos ugu hadli karaa aniga oon aan cid turjumaan u baahnayn kuwa kale waxaa laga yaabaa inaan yar meelaha ka soo yarbowsado luqadda ingiriiska turjumaan u baahan karo luqadda Soomaaliga turjumaan u baahan karo luqadeeda hooyada Soomaaliga turjumaan u baahan karo tirahay sheeka ay soo artay iyo weliba waxa weeye story dheer tirigamina حسوا اوكي ها حسوا سلام يا لبحي عاد كور سو كمان تاريخ هذا كل شيء dad badan oo daawanayaan sharaf iyo karaam ay leeyihiin aad ugu mahad celinayaan asxaabaytii min awshii noqotay inuu soo dhawaad magaaladii markaan nimid anigoon xiriir ku lahayn qisada laftiina way anfacaysa iska dhageyst waxa laga yaabaa weligeed idin ka sheekay sharaf iyo wanaag bileen asxaabta qiimaha la ila socotaa iyo doon salaamaya marka magaaladii imid tuuladii meeshii tuulo moran kara gobolka Jara caasimadiisii anigu tuulo ka imid waxba kama garanayo hawlahan caasimada telefoon bay leedahay laydar bay leedahay xiriir iyo dawladda ay leedahay qorsho anigu isku soo dhex istaagay anigu markaan iska imid magaaladii waxaan helay magaalo yaro meel yaro maqaayad dadka dhan isugu keentay oo dadku ay aad ugu badnaayeen odayaal iyo dhalinyaro iyo shaah lagu wada cabiyo lagu sheekaysanay meeshii markaan soo dhex tuuray waxaan idhi warnamayahow maxaad sheegteen anagu maxaa sheegteen baa isku salaanaa haddaan nahay dadka Soomaalida dhaqanka naga caadiga maxaad sheegteen micnaheedu waxa ka dambeeya lagu sheekeynaya taliya xasoo hay Soomaaliga waad iga baranaysaa weerar waxa waad fahmaysaa ko joonjo sindio asxaabteeda 441 ila socota marka ay halka marayso xaajadu aan magaaladii imid aniga aan xiriir lahayn oo reermiyii ka imid oo aan qoraal aqoonin sida wax loo qoro oo hawsheedu adag tahay waliba intaan iskuul soo yara maray marka sida magacayga loo qoro aqaana si loo akhriyo aqaana jawigu nin iska okay ayaa waxaan ku yiri ninkaas ahay reerkaas ahay jawigu waa sida halkan hebel iyo hebel baa ii degan magaalada marka waxa ii degan walaalahayga waaweyn baa degan waxa degan sidiyaashii oo inamada walaalahan ahay qaba magaalada marka dad baan ku leeyahay laakiin dadan xiriir telefooniga haya maaha dad xiriir telefooniga yaqaanay maaha dad telefooniga sugayay maaha dad halka iga rajeynayay maaha in iska madow waxa lugeynayo ordaya murule wiil murule ay maadamana murule ay maadamana way niman qabiilkiisa ku faanayay maad murule laandheer markii aan halka imid aan haway magaaladiisa u dhex istaagay ayaa waxaan niman bay u yiraahdeen war hebel soo ma qofka rabtid ha war ku geynina gacanta la soo qabtay waa leeyigi from there nolosheedii safartii iga bilaabatay horta ilaa maanta transit baan maanta waan la hadlay idinku fara badan transit baan ilaa maanta Soomaalidu waa guura madaga way guurtaa mana degto Tanzania qaar baa ku soo maraysaa Mozambique qaar baa ku soo maraysaa South Africa qaar baa ku soo maraysaa South Africa qaar baa ku soo maraysaa and then all kulligood mid walba wuxuu leeyahay I'm from somewhere
I'm from somewhere. I'm reer muduga laandheer muduga ahay buu ku leeyahay. Hey, reer gaalkacay reer burco reer Djibouti ma garanaysaa transit baynu wadanahay marka from maalintaas laga soo bilaabo noloshayda wixii ka dambeeyay horta anigu waxaan noqday qof maxay ahaydeen nolosha hadaf raadiya wax badan baa soo dhex galay siyaasad baan xataa galay siyaasadii baan arkay inaan anigu qof siyaasad baa ahayn oo siyaasaddu ilaa waa khaa'inimo iyo tababarin iyo balaayo iyo wax la isku qaldee shaqadaas teedina ahayn baan fahmay waxaan fahmaynaa bulshada Soomaaliyeed anigu leader u noqon kara anigu oo ah qof positive oo dhaxeeya shaqadeedii magaalada Nairobi intaan aanan imanin dhibkii aan soo maray haddaan dadka faraha badan waxa weey daawanaya uga sheekeeyo ma dhamaanayso waqtiguna uu soo baxayaa sababtu tahay baan idinka sheekeynaya safar qaadatay 12 habeen baan waxaan saarnaa gaari 12 habeen safar qaadatay baan gaari saarnaa dadka qaar baa inta ka yarbay imka Mareykan ku gala dadka qaar baa inta ka yarbaa Mareykan ka imka ku soo Mareykan baan joognayay baraf bay saas ugu galay cabdidaanta ka mid ah saas baraf ku soo qabanaya iyo qolada team oo cadnaan model team halkan ka baxay sawir baraf airport ka laga bilaabay marka saaxiibayaal jabkii aan soo maray waxa ka mid ahayd gaarigii aniga aan watay oo aan shacabka ka mid ahaa saarnaa oo maanta aan loo rahaynin meel ay ku kala nool yihiin iyo meel ay joogaan in la afduubtay annagii oo dhanba niman huwaysan oo ciidankoodii waxoodii wata oo dhamaystiran qalabkoodii oo meel ay ka yimaadeen baa lagu garo xoogna lagu afduubtay way soo martay nolosha marka aad tahay qof dadka ay yaqaanaan laakiin taariikhdaadu aysan ahayn qof maaragtay qof walba uu hayo waxaa laga yaabaa inay dadku ay ku wareeraan tolo hebelkaasi siduu magaca ku yeeshay dhalinyaro badan ay yiraahdaan siduu qofkaas intaasoo 100,000 followers-ka ku gaadhay siduu inuu qofku isweydiiyo laga yaabaa moogta marka waxaan ku sheegayaa nolosha haddii aadan halgamin oo aadan soo